بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Cabdi Cumar madaxxabseedka biyaha degmada Booq hadii aan xaaladda guud ee deegaanka ka warbixiyo degmada Booq waxay leedahay 12 ceel hal ceel uu xumaaday waxa hadda noo shaqeynaya waa 10 ceel 10 ka ceel afar ceel bay bulshadu isku tashi ay ku samaysatay afarta ceel waxa kamid ah ceelkan aanu hadda joogno Dameero joog ama Khayr joog la dhaho ceelkan waxa ay bulshadu isku day ku samaysay laba jeer hore markii ay labadii jeer ugu horeysay way ku guul dareyseen ama way u socon weeday shaqadii mar saddexaadkii ay ceelkan qoteen ceelkan oo ay ku baxday 12 milyan lacag u dhiganta iyo solar systemkii mar labaadkii saareen oo ah lacag 3 milyan iyo 200 halka waxa ka muuqda haantii oo ah ku meel gaar ahaan 40 iyo 5 mitir kubiga oo hadda ku meel gaar ah oo la sameeyo iyadana sidoo kale waxa ka qaybgalka bulshada iyo abaabul ay ku jirto badbaado community iyo odayaashii deegaanka iyo waxgaradkii ayaa tashaday marka xoolahoodii ay waxa ugu daneeyeen in ay ku cabaan solar system oo inta badan dhibaatooyinka waxa ka soo gaaraysa matoorka markii heer deegaan laga keenay iyo bamkii wixii dhibaatada waxa la shidaal la'aantii hadda qorraxda gobolkan uu aad uga soo baxda marka si looga faa'iideysto solar system ay sameeyeen marka degmadan inta badan degmooyinka kale waxa ka horeysa isku tashiga ceelkii markii hore aan ka nimidnay meesha la yiraahdo Afridood isku tashibo ah ceelal kale oo isku tashiyo sida Samil Gowrac la dhaho oo Sharmalal la dhaho way jiraan marka bulshadu baahi badan bay u qabeen bulshada halkan intay ka arooraan oo ay ku arooraan awr ama dameero ayay waxay aadi jireen 90 kilomitir meelaha qaar 3 habeen bay dhixi jireen meelaha qaar way way jireen dad badan inay oon u leedeen waqtiyadii hore laga yaabaa waqtigan hadda ceelkan waxa uu jira xagaas 40 tiro ku dhow jira ceelka ugu dhow ka kalena wuxuu ugu jira 91 marka insha Allah hadda waxa uma jireen way ka faa'iideystaan bulshaduna waxay rabaan inay ka qayb qaataan ka qaybgalkan ay si balaariyaan insha Allah inahaasan ku soo koobiya waxaan leeyahay santarada kale ama degmooyinka kale ama deegaanada kale ee ku xiran Khayr joog ama Afridood ama Sharmalal ama Samil Gowrac ha ku daydaan oo santarada kale ee degmada Booq ha ku daydaan oo isku tashi ceelasha hana ku qotaan oo solarada isku tashi ku saartaan annaguna wixii facilitate iyo wixii mashaariic iyo wixii aan awood u leenahay heer degmo waan ka soo gaarnaa wixii heer deegaanka ka xiran codsigan u weydiinana insha Allah saasay noo noqonaysaa aad iyo aad baan salaam ya bahda